warninkii wax dooranaya codaynaya u baxaya maalinta isniintow codkaaga halkaad dhigayso ka fiirso waa amaana satuktabu shahaadatuhum wa yus'aluun waa la qorayaa waana la isweydiin doonaa khamriile tuuga haddaad soo saarto waad la wadaagtaa wuxuu xumeeyo waayo adaa sababtii iyo sallaanku ku soo fuulay noqday waxaan leeyahay mar haddaynu taaganahay min baabi irtikaabi akhafi dararayn oo laba daran mid dooro fursad kale aanay bannaanayn oo maanta hab islaami iyo nidaam islaami oo dadka ehelka waa ahlul xalli wal aqdi lagu soo saaraa aanu jirin oo dimuqraadiyadda ay tahay waxa ummadii lagu khasbay gaal iyo islaamba waxaan idin leeyahay qofka codaynayo waa amaana amaanada haddaad ilaalin weydana ilaahay waa ku weydiinaya laba markay ku simanto ka ilaahay ugu dhawaansha badan ee alla garanaya ee xaqa alla ilaalinaya waayo ilaahay xaqiisa nin ilaaliyay ayaa aadamahana ilaalin kara ta ilaahay nin dayacay taadana daryeeli maayo cid haddaad dooranayso dadka ku hor taagan ka ilaahay ugu dhow kaa codkaaga si haddaad cid siinayso waayo dee natiijada iyo wixii ka dhasha waxbaad ku leedahay taasaan markaa aad iyo aad idinku adkaynaya qabiil waxba ha ku dooran si kastood laabta isaga garaacdo qabriga keligaabaa geli man rabbuka man nabiyuka wamaa diinuka ayaa lagu weydiin laakiin reer bani fulaan yaad ahayd lagu odhan maayo qabriga markaad gasho kulmiye iyo ucudiya wadani lagu su'aali maayo man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka marka qabiilna ha ku codayn xisbina ha ku codayn kaad isleedahay meeshuu doonaha joogee alluu ugu dhow yaho isagaa ummadda ugu mudan codkaaga haddiiba aad bixinayso kaasi waxaan intaa uga gudbayaa amnigu waa muhiim iyo nabadgelyadu waana gogasha aynu ku wada fadhino ee jumcihii iyo jamaacaadkaba aynu isugu imanayno ammaanka nin walowba xaggaaga ka ilaali dowladdu kaliya ma saara qof walba halkiisuu bilays iyo ammaan ku yahay ammaanka aynu wada ilaashano wixii waxyeelaya ee darar iyo dhib ku ah aynu iska wada qabanno aadna aynu u foojignaano oo qof walba dareenkiisa iyo garaadkiisa iyo soo jeedkiisu aad iyo aad ha u soo jeedo oo wixii dhib loo arko ha la iska qabto ciddii khusaysana ha loo sheego ammaan baynu ku soo toosnay iimaan baynu ku kulannay waxba inagama maqnaa barkhadi waa inagu dhan tahay balaayun baa inaga maqan haddaynaan inaku doondoonan ammaanka aynu ilaashanno ilaahayna aynu u mahadnaqno macaasida iyo fusuqaana ha laga toobad keeno intaan laynagu dubayn ee dulli aanu inagu dhicin ilaahay oo munaasabada nagu soo foole nagu soo dhow ammaan iyo nabadgelyo allah ayow ku dhammee iyada qabsoomideeda iyo natiijadeeda iyo jawaabta ka soo baxda intaba ilaahu ammaan bilowgeed iyo dhammaadkeedaba nabad iyo ammaan allah ayow ka dhig wax dhibaato oo dhan allah ayow naga dhowr dalka iyo dadkaba allah ayow ilaali ilaahu ammaanka iyo iimaanka noo ilaali ilaahu waxaad na siisay waanu kugu mahadnaqanaaye noo sug oo noo ziyaadi